waxaana wanaagsan daawada ku soo dhawow warbixin gaar ah oo aynu idinka diyaarinay maray habaabinta Trump iyo taageerayaashiisu iyo waxyaabaha qaldan ee ay ka aaminsan yihiin Soomaaliya. Haddaba Trump iyo taageerayaashiisu ma lis dhihi karaa waxa ay Soomaaliya u haystaan in ay joogto sanadkii 1993. Haddaba macluumaad arrintan ku saabsan ayaan idinka hayaayay mar kale ku soo dhawaada saaxiibayaal. Warqadaha tixanaha ee saxafiyiinta Afrika waxaan ku qaadanaynaa mid uu qoray Ismaaciil Caynaashi oo eegaya sida ay Soomaaliya bartamaha ugu gashay ololaha doorasho ee Mareykanka. Madaxweyne Donald Trump ayaa gabadha ka tirsan Koongareeska dalkaasi ee asalkeedu yahay Soomaaliya waxa uu ka dhigay mid ka mid ah dumarku ololaha u adeegsanayo si dib looga doorto doorashadii bishii November ee sanadkan, taasi oo looga adkaaday iyo sida dadban ee ugu takooro dalka ay ku dhalatay ee Soomaaliya. Weeraradiisii dhawaan ee uu ku sheegay ololihiisii Tulsa iyo Oklahoma waxa uu gabadha 37 sano jirka ay ku eedeeyay in ay doonayso in ay qalaasaha Soomaaliya ay keento Mareykanka. Waxay jeclaan lahayd in dawladda dalkeena ay la mid dhigto midda wadankii ay ka timid ee Soomaaliya. Soomaaliya waa dawlad la'aan, amni la'aan, boolis la'aan, waxba kama jiraan, waa dagaalo un. Haddana waxa ay noo sheegaysaa sida dawlad looga shaqaysiyo. Maya, waad mahadsantahay, ayuu yiri Mr. Trump mar uu la hadlayay taageerayaashiisa Oklahoma. Ilhaan Cumar oo Mareykanka tagtay iyada oo yar oo qaxooti ah sanadkii 1995. waa xildhibaanad matasha gobolka Minnesota oo magaalada Minneapolis ay ka tirsan tahay, halkaasi oo ah meesha lagu dilay ninkii madowga ahaa ee George Floyd bishii May ee sanadkan aynu ku jirno. Dilkaasi waxaa ka dhashay ololaha iyo dibadbaxyada halku dhiga looga dhigay nolosha dadka madowga qiimo ayay leedahay, balse madaxweyne Trump ayaa doorbiday in ololihiisa Tulsa uu diiradda ku saarayo meesha ay asal ahaan ka soo jeeday Ilhaan Cumar. waxaana suuragal ah in uu mara habaabinayo dhammaan qalaasaha iyo rabshadaha agtiisa ka dhacay. iyadoo taa ka jawaabaysa Ilhaan Cumar waxa ay sheegtay in hadalkiisa uu yahay cunsuriyad. waxay intaas ku dartay in caradiisu ay ka dhalatay natiijadii afti dhawaan la baahiyay oo muujinaysa in musharaxa ay loolamayaan ee dimuqraadiga Joe Biden uu kaga sareeyo codaynta gobolkeeda, halkaasi oo ay degan yihiin bulsho badan oo Soomaali ah. madaxweynaha waxa uu Ilhaan ku tilmaamay qof uu nacayb ka buuxo oo ah dhibaatada hanti wadaaga Mareykanka, wuxuuna ka digay in dalka ay bedelayso haddii Biden uu ku guuleysto xilka madaxweynenimada dalkaasi Mareykanka. waxaase xaqiiqo ah in Ilhaan iyo Biden ay kala taagan yihiin laba dhinac oo iska soo horjeeda oo dimuqraadiga ka mid ah. Ilhaan waxa ay si weyn u taageeraysaa Bernie Sanders inuu ku guuleysto tikidhka tartanka ee dimuqraadiga, balse hadalladaasi dhankiisa door ayay ku leeyihiin. waxayna tahay doorashada loo saldhigo iyo codaynta ayna Ilhaan iyo Soomaaliya ay eeganayaan door fiican. xaqiiqdii labaduba waxa ay dood kulal ka dhex abuurtay sanadkii tagay iyadoo kulankii Trump ee North Carolina ay dadkii ku qaylinayeen waxyaabo ku saabsan Ilhaan sida dib u celi. xaqiiqdii labaduba waxa ay dood kulal dhex martay sanadkii tagay iyadoo kulankii Trump ee North Carolina ay dadkii ka qaybgalay ku qaylinayeen waxyaabo ku saabsan Ilhaan sida dib u celi. waxay dib u soo nooleysay hadalkii ahaa iyada xir oo ah halku dhig ay taageerayaashiisu ka sameeyeen musharrixii ay ku tartamayeen doorashadii 2016 ee Hillary Clinton. Ilhaan Cumar oo si weyn u dhaleeceysay madaxweynaha waxay mar la kulantay caqabad. waxay eeganayay dimuqraadiga iyo jamhuuriga labaduba, taasi oo ka dhalatay hadallo ay ka sheegtay Yahuuda. waxa ayna raaligelin ka bixisay fariimaha Twitter-ka ee ahaa in taageerida xildhibaanada Mareykanka ay la xiriirto lacagta ololaha. senator ka tirsan jamhuuriga Rand Paul waxa uu sheegay inuu tikidhka diyaaradda ee Soomaaliya ka bixinayo Ilhaan Cumar oo uu sheegay in ay tahay qof aan abaal lahayn. waxay u muuqataa in aragtida Trump uu ka qabo Soomaaliya ay wali ku xiran tahay markii xilka laga tuuray Maxamed Siyaad Barre sanadkii 1991. markaasi kadib Soomaaliya waxaa loo aqoonsaday dalka ugu fashilka badan caalamka. aragtidaas ayuu si qaldan oo aan ka fiirsasho lahayn u aaminsan yahay, iyadoo xitaa dalka xaaladiisu ay soo hagaagayso. Trump waxa uu mala awaalayaa in Soomaaliya aysan ka jirin sharci iyo kala dambeyn, boolis iyo dawlad la'aan. haddaba taasi waxay aad uga fog tahay xaqiiqda. dawladda ay qaramada midooba taageerayso ayaa tallaabooyin yaryar oo dib u dhis ay ka samaysay dalka, waxayna ka hortagaysaa Al-Shabaab, iyadoo dad badan oo qurbo joog ahi ay dalka dib ugu soo noqonayaan si dib u dhis ballaaran ay dalka ay ugu geystaan. dawladahaas dalka soo maray ee isbedelada sameeyay waxaa ka mid ah midda uu hadda hogaaminaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaas oo xubin ka ahaa jiray xafiiska xisbiga jamhuuriga ee Bavalo.
wuxuuna iska celiyay sharcigii dhalasho ee Mareykanka uu ka haystay wuxuuna xilka hayaa tan iyo horaantii 2017 gobolada waqooyi oo la magac baxay Soomaaliya iskeena ugu dhawaaqday madax banaani waxa ay soo qabatay doorashooyin xaq iyo xalaal ah inkastoo aan la aqoonsanayn haddana waa dimuqraadiyadda ugu adag geeska Afrika waxaa suuragal ah in aragtida Trump iyo taageerayaashiisu ay Soomaaliya ka qabaan ay wali tahay mid ku saleysan wixii dhacay sanadkii 1993 mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ee faragelinta Afrika ee Mareykanka ayay ahayd xilligaasi oo askartii Mareykanka ay Muqdisho ka bilaabeen howlgal dhibaato ku dhamaaday waxa ay doonayeen in ay soo qabtaan General Maxamed Faarax Ciidiid laba diyaaradood oo ah nooca Black Hawk Down ee Mareykanka ayaa la soo riday waxaa dagaalkaasi ku dhimatay 18 askari oo Mareykan ah iyo qiyaastii 500 oo qof oo Soomaali ah muuqaalada laga duubay askartii meydadkooda jidadka lagu jiiday ayaa argagax ku abuurtay shacabka Mareykanka waxayna saameyn muhiim ah ku yeesheen siyaasadda dibadda Mareykanka gaar ahaan gobolka Bariga Afrika balse maamulka madaxweyne Trump waxa uu sameeyaa dagaal qarsoodi ah oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya waxayna ciidankiisa adeegsadaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroonka loo yaqaaniyo askar sida gaarka u tababaran waana arrin ay dad yari oo Mareykan ahi og yihiin qaar ka mid ah Soomaalida waxay aragtida Trump ee dalkeena Soomaaliya u arkaan mid aan asal lahayn waxayna ku doodayaan in shuruucdiisu ay dalka ka dhigeen mid aad halis u ah waxayna sheegayaan in shacabka ay markasta dhibaato ka soo gaarto duqeynta ay darooniska Mareykanka geysteen Soomaaliya intii uu xilka hayay Trump dowladda dhexe ee Soomaaliya waxa ay burburtay muddo hadda laga joogo 30 sano ku dhawaad dadkiina waxa ay u kala qaxeen daafaha caalamka laga soo bilaabo cirifka ilaa New Zealand Mareykanka gudihiisa Soomaalida ugu badan waxa ay degan yihiin Minneapolis oo hoy u ah qurba joogta Soomaalida ee ugu badan caalamka waa meel ay ka muuqdaan muslimiinta iyo dad madow ah tan iyo wixii ka dambeeyay weeraradii September 11 ee Al-Qaacida ku qaaday Mareykanka waxa ay dood adag ka taagneed kaalinta muslimiinta ee Mareykanka Trump waxa uu markasta adeegsadaa hadallo ka dhan ah muslimiinta isagoo ka digaya dad soo galooti ah oo xun wuxuuna adeegsadaa cabsida noocaasi ah marka loo eego madaxweyne Trump waxa uu Ilhaan Cumar u arkaa in aysan ka mid ahayn qaxootiga fiican gabadhan oo sheegtay in ay ku faraxsan tahay xirashada xijaabka waxay u dagaalantay xaq ay u leedahay in ay timaheeda qariso marka ay ku sugan tahay aqalka wakiilada Mareykanka taasi oo meesha ka saartay xanibaad soo jirtay 180 sano daawada guud ahaanba waxa halkaas inooga eg warbixintii gaarka ahayd ee aynu ku eegayna aragtida qaldan ee Soomaaliya ka aaminsan yihiin Trump iyo taageerayaashiisu haddii aad la dhacday warbixintan fadlan subscribe sar siina share gareysi ay u gaarto saaxiibadaada kale